wuxuu awooday inuu u ciyaaro heerarka kala duwan ee kooxda isla markaana u jaro si degdeg leh. Laacibkan oo da'diisa aad ay uga yartahay ayaa 16 jirada u ciyaaray markii ugu horeysay sanadkii 2021 sanad gudihiina waxa uu isu jaray kuwa ka hooseeya 19 isagoo jira kaliya 14 sano. 29 bishii Abriil sanadka 2023 isagoo jira kaliya 15 sano waxa lagu soo daray safka kooxda kubadda cagta Barcelona ee ka hortagaya naadiga Real Betis si uu noqdo kulankii ugu horeeyay u safanayo naadiga isagoo waliba xirtay maaliyadda safka koowaad waliba da'daasi isagoo jira. Laacibkan waxa uu ka ciyaaraa boosas kala duwan laakiin bulshadu waxay ku baratay garabka midigta inkastoo haddana uu ka ciyaari karo garabka bidix iyo waliba laacib creative ama kubadda abuura. Laacibkan wuxuu leeyahay lug bidix oo cajiib ah isla markaana shabahaysa Lionel Messi. Waa mid ka mid ah xidigaha ugu guuleysiga badan markay timaado akademiyadda La Masia. Wuxuu ka ciyaaraa weeryahan feyga ama weeryahan buga. Sidoo kale garabka bidixda iyo waliba midigta ayuu isu maray. waana mid ka mid ah xidigaha ugu mawhiibsan markay joogto akademiyadda La Masia. Lugtiisa bidix waxa lagu matalay Lionel waxa leedahay orod, gambis iyo waliba xitaa xirfado kale. Ninkan asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa Morocco. Aabihii ayaa wadankaasi u dhashay isla markaana hooyadii waxay ka soo jeedaa Guinea. Waxaana uu ku dhashay wiilkan magaalada Barcelona ee gobolka Catalonia. magaciisa si sax ah waa lagu yeerayaa marka la yiraahdo waxa uu noqonayaa Lamine Yamal, laakiin waxa loo yaqaanaa markay luqadda Spanish ka joogto Lamine Yamal. Ninkan ayaa haysta jinsiyadda dalka Spain, sidoo kale waxa uu ciyaaray heerarka 15 jirada isagoo isu dhaafay heerarka kale ee La Roja. Waxa uu haatan u ciyaarayaa heerka 19 jirada kadib markii uu soo maray 16 iyo 17 jirada. Xavi Hernandez oo su'aal hordhig oo ku saabsaneyd laacibkan waxa uu ka yiri waxa uu shabahayaa Lionel Messi, waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican dunida kubadda cagta. sababaha ugu weyn ee jaaniska loo siinayo waxa lagu sheegay naadiga kubadda cagta Barcelona inay ka baqayso laacibkan inuu diido heshiis inuu saxiixo isla markaana wiilkan aad ayuu ugu dhawaanayaa baa la tilmaamay inuu isaga tago kooxda. Ma is leedahay waxa uu noqon doonaa Messi-ga cusub, ama waxaad leedahay waxa uu la mid noqon doonaa kuwii hore Messi loola matalay balse mawhibadoodu xitaa maalin aysan gaarin.